واتهاي ساوث أفريقيا مدحوينه عصب للدورتي أيا نوصل صعود المرلو أنقصه الرأي إثيوبيا وحلكي رئيس الوزراء إسكا عسلي دسلين حيل مريم وحكلو إسكا عسلي قدوميه حزب قتلده هي EPRDF تا عسليدان waxay ku soo beegantay waqti qayb dalka kamid ah rabshada ay ka dhacayaan rabshadahaas oo sababay in dad badan ay dhintaan kuwa kale ay ku dhaawacmaan qaarna ay barakaceen kuwa kalena jeelasha laga buuxiyay in kasta oo qaal badan la cafiyay haddaba waxaanu eegaynaa sababaha keenay in Hayle Maryam uu xilka ka dago xilkaas uu hayay 2012 ilaa iyo maanta waqtigaas uu geeriyooday ra'iisul wasaare hore Malla Sanaawi wariyaha BBC-da Raaga Xasan iyo toos iminka uu fadhiya stuudiyaha iyaga ee Nairobi raage waa mahadsantahay bal marka hore waxaan nooga warantaa khudbadii ra'iisul wasaaraha iscasilay iyo wixii dheeraad ku soo kordhay iyo sababtii uu askaray عبد النور خطبة رئيس وزراء كجدي تلفزيون كدولة أيها وحنا كشجع إنه رجينا ينعس عزلات دي سايق عنك جيسون تون تحال كلور هذينية حسيلون الدرجة هاتن كتاعن دلك إثيوبيا وحاول شجعين ينعس عزلات دي سوار كأنه قيب وين أي كتاع دبها بنت لغوس ماينا يدل كاسي أو سلوغوس وطبالة يوري نبت بوحدة إسقى شجع ينعس عزلات دي سوار كأنتاسي أي قيب مهمة كتاع جارهان سد nabad buuxda buu loogu soo dabaal lahay dalkan oo marka la eego dhinaca dhaqaalaha bariga Afrika kan korin ahaan ugu ballaaran isagoo arrimahaasi ka hadlaya ra'iisul wasaare Hayle Maryam Desalegn waxa uu yiri ihadagna mangist baahul waqt waxaan rumaysnahay in baarlamaanka Itoobiya uu iga aqbali doono iscasilaadayda sababta ugu weyn ee aan u soo gudbiyay iscasilaada waa aaminsanaantayda inaan qayb ka noqdo xalka si loo helo nabad waarta iyo dimuqraadiyad aan liiqliiqan ee wadankeena عبد النور waxaad ogsoon tahay in iscasilaadiisa ay daba socotay rabshada dalkaasi ka dhacay taasoo ku qasbay dawladda inay sii deysay in ka badan 6,000 oo maxaabiis siyaasad u xirnaatan iyo bishii January boqolaal qof ayaana ku dhintay rabshadahaasi oo bilowday sanadii 2015 oo ka bilowday inta badan gobolada ugu dadka badan dalkaasi Oromia iyo gobolka Amxaarada xasilooni darradaasna waxay markii hore ku bilaabatay diidmo ay dadkaasi diidnaayeen qorshe ay dawladda ku ballaarinaysa caasimadda Addis Ababa balse markii dambe isku bedelay carad dadweyne oo ka dhan ah waxay ugu yeereen xadidaad dhinaca siyaasadda dhulboob iyo sidoo kale tacdiyad dhinaca xuquuqda aadanaha waxayna taasi horseeday in dawladda xaalad degdeg ah dalka ay geliso muddo 10 bilood ah balse waxaad moodaa in taasi aysan xalilin iyadoo markii dambe dawladda soo saartay siyaasad ay dadkaasi xabsiga uga soo deynaysa gaar ahaan dadkii 3 sano ee la soo dhaafay xabsiga la geliyay iyadoo sidoo kale cafis u fidisay balse waxay u muuqataa intaasi aysan gacan ka geysan wali xalilida arintaasi iyadoo isbuucan aan aragnay mid kamid ah mudaharaadyada ugu ballaarna oo ka dhacay goboladaasi gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo in ka badan 10 qof ay ku dhinteen waxayna u muuqataa Cabdi Nuur inuu xoogaa jiray kala qaybsanaan xisbiga talada dalkaasi hayo qaabka arintan loo xalin lahaa Hayle Maryam hadalkiisana waxa ka muuqatay in uu leeyahay siyaasadda wali kama tanaasulin balse waxaan doonayaa meel ka baxsan halka inaan ku sii waday dib habeynta oo halka qayb ka noqdo waa tahay taasi waa tii dawladda ee wadanka sida looga dareemay gaar ahaan mucaaradku ma ka hadlay arintan mucaaradka ayaa durbaba arinta ka jawaabay waxaad moodaa in arintan ay soo dhaweeyeen balse ay leeyihiin arinta wali fari kama qodno Gatana Balja oo ah gudoomiye ku xigeenka mid kamid ah xisaabta mucaaradka xisbiga loo yaqaan Blue Party ayaa waxa uu sheegay in tani ay ahayd mudaharaad ay dadka sameeyeen mid ku khasabtay ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo balse waxa uu sheegay in taasi tahay bilow oo loo baahan yahay mas'uuliyiin kalena in ay arintan ku daydaan ra'iisul wasaaraha uu sameeyay awoodana dib loogu soo celiyo sidoo hadalka u dhigay dadweynaha waxaanu ku tilmaamay inuu war aad u wanaagsan isagoo sheegay in waxa ugu yeeray halgankan uu sii socon doono raage waa tahay ra'iisul wasaaraha waa kan way iscasilay maxaa marka la filayaa inay xigaan siba hoggaanka wadanka iyo dawladdiisii iyo wixii oo dhan ma wada raacayaan iyaasa keenayo soo xulay ra'iisul wasaaraha cusub waxay muuqataa in wadanka uu ra'iisul wasaaraha u gudbiyay si rasmi ah iscasilaadiisa isla markaana xisbiga dalkaasi talada haya EPRDF sida uu ra'iisul wasaaraha u sheegay uu ka aqbalay balse wuxuu u baahan yahay marka hore xisbigaasi golihiisa inuu fariisto si uu arintan uga hadlo isla markaana baarlamaanka loo gudbiyo si ay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha iscasilaadiisa haddii arintaasi ay ansixiyaan xisbiga ay markale u taalaa soo magacaabay
magacaabidda ra-iisul wasaare kale